youtuberada caanka ah ee ku kaboole ka digitaankeedii magaalada ee Muqdisho ka degtay waxay kala kulantay aflagaada lixaad leh waa kaliya aalada Facebooka aaladaha kale sida TikTok-ga, YouTube-ka, Snapchat-ka, Instagram-ka soo dhaweyn far badan bay ka heshay laakiin aalada cirdigeeda sharafkeeda even xataa waalidiinteeda lagu gafay waxay ahayd aalada Facebooka waxa isweydiinaynaa marka maantay haddii aan ragnahay positionka aan ka taaganahay arrinkaas oo kale sababtoo ah reer Commitland iyo dadka wax daawada afkiin ugu weyn anaa ku hadla arrinkaas waa idinka bariyeeli doonaa sidoo kale saddex qodob asaasi ah oo safarkan uu quseeyay wada istaagi doonaa haddii aan uga cusub tahay fadlan channelka ku soo dhow kacmo furan commentigu maanta waa long life FIFA macnaha kooka buule si dadka qaar markay soo galaan narrative-yada ama maskaxdooda xumaatada ay ku jirto commentiga taageera ay ku haystay oo la yaabto FIFA kooka buule commentiga ku soo qora لقيت البرنامج نو صار وكيل مامنا سعيدك حساسي هل كان كسلام يا شيدو كل دمان فاميل انو فاميل كو بدين ما شاء الله فاميل ك رير بول ولي ابا يهويد ودد ليرا يران بي ku shaqeysteen baan karna فاميل ka reer buule wiilal iyo kabdho dhamaan aad baan u salaamaya waxaan rabaa markii aan ka jawaabo dumarow waa idin soo socdaa gabagabada muuqaalka idin imaanaya waxaan rabnaa inaan ka jawaabno eedo fara badan ama aflagaado fara badan oo loo soo jeedinay kooka buule inta markaan eedahaas ama aflagaadadaas aan u gudagelin waxaan rabaa safarkan saddex qodob inaan ka dhaho midda koobaad waxay tahay dadka ay ka soo tagtay gabadhan dadka sidaas u murugaysan bay ahaayeen even saamiyo kale saamiyo qof walba ka tagay waa dadka friendship ama saaxiibtinimada aad ugu intahay qofka mar haddii isbartaan inuu ka dheeraado aan jecleen saamiyo waa topic kale ama mowduuc kale laakiin macnaha even team 27 oo dhan qaabka ay ugu xumaayeen ama murugadii u dareemayeen waxa ka garanaysaa number 1 horta meeshii ka tageysay in laga jeclaa oo loo ilmeynayay qodobka labaad meeshii ay tagtana si qeyrul caadi ah loogu soo dhaweeyay macnaha si lixaad leh soo dhaweyn ballaaran halkaas waxa ka garanaysaa meeshay imaanaysana in laga wada sugayay oo farxad iyo reereen la sugi lahaa marka ay kooko iyo xasaasi ay soo caga dhiganayaan magaalada Muqdisho marka mar haddii meeshii aad ka soo tagtayna lagaaga ilmeynayay meeshii aad timidna soo dhaweyntaada lagu sugayo dabcan meel laga jecel yahay ka soo tagtay meel laga jecel yahay waa tagtay waalidiintii hooyadii aabihii macnaha familkii baa ka qayb qaatay familka gabadhan hawsha ay soo qabatay iyo waxyaalaha ay mataqaana ku soo guuleystay intii Malaysia joogtay hadday ka xun yihiin oo Israa'iil ka ahayn dabcan soo dhaweyn oo maysan sameyn lahayn qodobkaas wuxuu gaar u yahay maadaama hooyadii aabaha qodobadii loogu gafay dhankaas Facebook ma soo qaadan doono boostida noocaas oo kala kuwa ugu macquulsanaa ee gafka intii loo geystay kuwa ugu macquulsanaaba intuu si doona laakiin kuwa aflagaadada ama cirdiga ama sharafka loogu gafayo marna ma soo qaadi doono marka pointiga hooyadii aabaha waxa ugu soo daray waxay jawaab u tahay qolooyin hooyadii aabaha si gooni ah ugu dhagnaa iyaga ay fahmi doona wallahi kookada saygo wayse kasamiya saakiin waxa dareemi karo qofka saaxiib saxaysta gashka waxa arka dad jacayl oo dad saaxiibtana oo ani maxaa igu dhacay baaray wallahi jacayl ma hay saaxiibna qodobka saddexaad wuxuu yahay dadkii daawadayaasha ah xataa aad ugu riyaaqsanayeen gabadhan oo magaaladeedii dib ugu soo noqotay waxaad garanaysaa intaas oo dhalinyaro ah inay wax la duubayeen energy fara badan ay u hayeen even iyadoo nasan xataa oo dhalinyartaas oo dhan markii ay muuqaalada soo dhigaan falcelin fara badan ay la kulmayeen almost muuqaalada 5 milyan ay daawanayeen taasoo ka dhigan dadka daawada ee social media daawadayaasha ka ana inay la dhacsanaayeen in gabadhan ay magaaladeeda ama caasimadeeda dib ugu soo noqotay marka meeshii ay ka soo tagteen hadii lagu ooyay meeshii ay timidna laga sugayay dadkii taageeray ee daawanayna muuqaaladeeda ay ku support gareynayeen dhanka qoraalka iyo commentiga iyo like iyo subscribe iyo wax walba halkaas waxay kaaga cadahay safarkaas safar guuleystay inuu ahaa aan u soo noqdo marka dhanka aflagaadada horta wixii cirdi iyo karaamo iyo gaf ma soo qaadi karno oo nin weyn baan halka ma soo dhigi karo laakiin waxaan rabaa inaan ki ugu macquulsanaa si logic u hadlay la isdhihi karo alla ilaahay qofkaana ugu hadal macquulsano aflagaada meesha ay ka reeban tahay waan rabaa inaan soo qaato macna hal tusaale rabaa inaan si muhiim ah ninkaan kale wuxuu yiri hadii cunuga dhashay u dirsato Malaysia wuxuu ku soo noqonayaa isagoo YouTuber ah hadii aad China u dirsatana wuxuu ku soo noqonayaa isagoo ganacsada dad minis inay ka dhigan tahay in macnaha Malaysia qofkii jaamacad ama waxbarasho loogu diro isagoo YouTuber oo ka soo noqdo su'aashaas aan ka jawaabna marka si fudud hadii ay soo noqon lahayd iyadoo xifradeedii jaamacadda soo dhameysay oo cilmigeedii aqoonteedii maskaxda ku wadata farsamo gacan ay u dheertahay mechanic korontiiste macnaha farsamo gacan ay u dheertahay waxa la dhihi lahaa wow waa good job
farsamo gacanna way wadataa cilmiga maskaxdan cilmi bay ku wadataa at the same time hadeerna waa isla meeshii cilmigana maskaxdii waxay ku wadataa maskaxdeedii ku wadataa oo cilmiga way soo barato jaamacadda way dhamaysay sidoo kale machine lacag sameynayna way wadataa dad jecelna way dhex joogtaa magacna way samaysay lacagna maanta way samaysaa marka haddii ay adiga kula qurux badan tahay qofku inuu intuu jaamacadda aado isagoo jaamacadda soo dhameeyay uu soo noqdo haddaba gabadhan waxay soo noqotay ayadoo jaamacadeedina soo dhamaysay magacna soo shaqaysatay dad jecelna abuuratay machine ay lacag ka samaysana jeeb ku wato telefonkeeda inay la soo baxday kaliya inay lacag samaysay ka xigto waxaan u maleynayaa jawaab kugu filan waa haysataa YouTube maanta lacag buu sameeyaa magacna waa sameeyaa sumcadna waa sameeyaa cilmigeedana maskaxdii ku sii wataa waa ka baxay marka kuma dheeraanay ninkaas waa ninka ugu macquulsanaayo aflagaada aan geysan kuwii kale dhahay waalidka ku gafeeyay ma soo gudageli karno macnaha wax gaf ah meesha ma soo saari karno dumarkii marka falcelintii ka falcelinayaan waxay ahayd macnaha ragga Soomaaliyeed haday arkaan gabar horumar sameysay way ka wada xumaadaan oo xaasidiin even commentigaas hal comment baa idin soo qaadaya halkii commentiga gabar qorto waxa ka koreynaya mar walba commenti wiil uu leeyahay war waxaana ragna la sheeganaya oo gabadhaas maanta mustaqbalkeeda qurxusatay ku gafaya waxaana ka hooseynaya commenti kale u dhahay adeero yaa masiirka laga dareemin hadaa adigu maanta Facebook at like iyo subscribe ka raadinayso maxaa adiga fiiri macnaha dumarow wiilkan waxa soo qaadina halka commentiga qortaan labada commentiga hareeraha xiga laba wiil oo gabadha difaacay bay ahaayeen hana soo keen wada qaadina even aniga xataa inaan soo fariisto aan dhahno war anaga nagu matalaan idinka ay u kalifaya hadii likes aan dhahdaan war adeero rag adoo kale ku jira oo asaga qofkii aad ku macnaha dhahdaan tan adiga kugu kooban tahay anaga markaas banaanka ka joognaa waa qanacsanahay laakiin wixii hadda ragga Soomaaliyeed dhahdaan hadda qaab dar noqonaysa inaan ka hadalno ka filcilmo aan dhahno war naguma matalaan naga mid miihin walaasheen iyo saaxiibkii xasaasi intaba waa taageersanahay inaan dhahnaa nagu kalifaysaan waa yahay qodobka u dambeeya waxaan dhigi karnaa narrative-ka ama nacaybka wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed u dhaxayn kara intee buu gaarsiisan yahay su'aasha jawaabteedu fudud waxay tahay markay gabar horumar gaartana ragga qaar baa tafaha qabsada markuu wiil horumar gaarana dumarka qaar baa tafaha qabsada marka mar walba aqligaaga yaan laga gadin ragga iyo dumarka Soomaaliyeed horumar isku ma ogola horumar waa isku ogol yihiin labada xabay ku dhex jirtaa waxay tahay sun dadkii oo dhan cudur ku faafinaysa marka koko buule waxaan leeyahay iyo xasaasi buule iyo yaxya buule iyo faarax buule iyo xaliimo buule ilaa waa badan yihiin moogta magacyada iska tuurana mid leela dhahay waa og aniga fartuun buule cabdullaahi buule cabdiraxmaan buule maxamed buule maxamuud buule macna waxaan leeyahay sharaf iyo karaamo ku noolaada barnaamijkan 3 qodob buu u sameeyay marka koowaad inaan baxa YouTubers lanahay oo shaqo wadaag aan nahay waa midda labaad inay gabar Soomaaliyeed lagu gafeeyo cirdigeedii karaamadooda lagu gafeeyay tahay waa midda saddexaad in ragga Soomaaliyeed dulmi aysan isku wada raacin oo ragga qaar ay dulmi sameeyaan laakiin anagu aysan nagu matalan inaad in cadeeyo barnaamijkan ay qurux badan laga diyaariyo comment qurux badan la subscribe jow